waa maxay cudurka daacuunka? بسم الله الرحمن الرحيم waxaad i weydiisay cudurka daacunka muxuu yahay marka daacun markii laga hadlayo waa horta cudur dilaaye waaye cudur fiican ma aha marka waxaana sababo maaragtay bacteria loo yaqaano maaragtay adiga bacteria kamid ah sababo oo keenta wasakh marka daacun waa cudur dilaaye cudur fiican ma aha waa shuban biyood marka shuban noociisu uu yahay nooca bariiska say u yaqaanaan dadkaba marka daacun calool bay u yaqaanaan insha Allah marka cudurkaas maxaa sababa? waxaa sababto marka san hore kugu sheegay bacteriadaas oo wasakhda keenta sababto marka waxaa kaloo sababo daacunkaas wasakha sababto sideeda banaanbo waxaa keenta nadaafad dari ayaa keento sidoo kale meelaha ama magaalooyinka ama sida qaxootiyada camal markii la joogo ama xaafadaha biyo la'aanta ama waxyaabaha wasakhda oo maaragtaa saxaradii caruurta oo banaamaha taalo waxyaabo badan ayaa keena waa 1 iyo 2 iyo 3 wax la dhigi karo ma laakiin nadaafad dari ayaa keenta marka sidee loo hortagi karaa? waa su'aal muhiim ah muhiim waxa waaye maxaa looga hortagi karaa ama sidee looga hortagi karaa sooma sidee loo hortagi karaa daacunka waxaa kale looga hortagi karaa nadaafad ayaa looga hortagi karaa waa in marka ugu horeyso wacyigelin la bixiyaa dadweynaha loo sheegaa in nadaafada ay number 1 ka tahay ka hortaga daacunka maxaa sababay haddii dadka waxay jirgaamay biyo ku dhaansadaan jirgaamaha biyaha ay ku dhaansadaan waa wasakh afkooda fiidan haamanka biyaha ay ku keedayaan sidoo kale waa wasakh afkoodii baa fiidan saxaradii baa banaanka taalo caruurta banaamaha ku xaaraayo saxaradoodii baa banaanka taalo waxyaabahaas dhan marka waxaa loo baahan yahay in jirgaamihii biyaha ku jiray la daboolo saxaradii caruurta la qaado oo musqushi lagu shubo haddaysan meesha musqul lahaynna la sameeyo maaragtaa god lagu keedayn kara amaba lagu shubi karo saxaradii si hadhow loogu duugo wasakhdaas marka dhib bay keenaysaa maxaa yeelay saxaradaas haddii taksi intuu soo fuulo raashinkaas ama biyahaas uu taabto qofkaas uu isticmaalo calooshiisa ay gaaraan taabaa marka keeni karto in meesha shaban ka dilaaco oo daacunka meesha ka dilaaco marka ka hortagiisana sidoo kale waa nadaafad waa ina fara badan tahay sidoo kale raashinka la kariyo islaanta waa inay hubsataa raashinka ay cunayso amaba reerka ay siinayso inuu yahay raashin biseel ah raashinka sidiisa badan ba asagana waxaa loo baahan yahay intuusan zaa'id u qaboobin in la cuno asagoo ah fardiir oo yar kulul in la cuno ma ahan micnaheeda raashinka in baraf laga dhigo mid kale raashinka markii islaanta ay karinayso waa inay dhaqdaa gacmaheeda qudaartii waa inay dhaqdaa wax walbo ayada ay faraha ku hayso inay dhaqdo waa mid kale waa inay si dabooshaa hadana raashinku ahaada raashin daboolan oo semberi asturan oo nadaafad leh oo markaas inuu ahaado insha Allah marka bulshada maxaad ugu baaqaysaa? bulshada waxaan uga baaqayaa aan u sheegayaa marka u horeyso cudurka daacunka waa cudur dilaaya ma fiicano qofku uu ku dhaco daacunka waa shuban biyood waaye qofkiisa sida ooga dhaqsiyaha badan oo fuuqbaa marka bulshada waxaan u sheegayaa 24 saac inta la gaarin ka hor qofkaas hadii uu fuuqbo xaaladiisa halis bay jilaysaa marka waxaan bulshada uga baaqayaa aan u sheegayaa qodobka koowaad waa inay nadaafada ku dadaalaan nadaafada in lagu dadaalo waa tan hore u soo sheegnay waxaan kale u sheegaynaa bulshada hadii ay dhacdo 2 ilaa 3 ilaa 4 jeer qofkii shubmaayo ama mataqaayo in sida oo dhaqsiyaha badan gargaar caafimaad loo fidiyo loo gaarsiiyo xarunta caafimaadka ama hilboosida ha noqoto ama sidoo kale isbitaalka weyn ha noqoto saas ayaan bulshada ugu wacyigelinayna aan u sheegaynaa sida oo dhaqsiyaha badan intii xaaladiisa ay meel xun gaarin si looga hortago insha Allah.